السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوتيوب كداون اسمه درس صومالي كسر دوادات كعصب تاي فضلا دات كعصب تاي سبسكرايب صار سوبتو بلاش. اوكي لما عنه قرني قتل دوريجر ما حسوتين او ليش كنت داين سكور سدان وحسوتين من الأزرار تي كاميرا دنيا رقمين تنشي سكير وحانو عشان نحاول مثلا. اوكي لما عنه بصور نقضي تبي شغال يعني برو مالنا ولي فيديو المداون لكن سه بحال أين وحي شغال يعني يلا ودلنا حكا وحن كاركا كوير صوتوير أو حير نقيسة sababaan ka ku shaqeysto oo magaalada ku maray ma haasto qof xuriye shaqeysta karo qof xuriye aan codka iyo muuqba garatay kan waa maxamed cabdiraxmaan iyo afadiisa ruqiya cabdullaahi lamaanihi qaranka social media ka marayeen ku yar bay soo dhaleen balse maanta uu werinayo wiilkooda yar ee aan weli sanad jirsan lamaanahan oo hadda ku nool magaalada muqdisho ayaa wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah tan iyo markii uu geeriyooday gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Engineer Yariso kaasi oo markii horeba dusha u ritay noloshooda. Okay isaga wax siin jiray miyaa wallahi gudoomiyaha waa ilaa uu naxariistay taasoo kale loo baarano cidla ciirsi halis amni iyo sidoo kale nolosha oo ay xabsi guri ku noqdeen ayaa isugu darsantay. maxamed ayaa si dareen leh iiga codsaday in aan muuqaalkiisan la wadaago bulshada si intii caawin kartaa ay u garab istaagto qoyskiisan ehelka u noqday murugo iyo nolol adag. goortan guurka marka guursaday ina adeerkayga fooqa dilitaan bay arrintan gaadhay wadanaas ku dhaxyaasano yimi qabanaysi maxay qabanaysi ma life banahay dilitaan guurkan dilitaan dhabuba sababayba qof baa uu geeriyooday arooskan daadii ayna loo dilay saxnaan loo dilay qof bilaadan saf loo dilo waan la gubay kadib waxa dhacday ina aniga oo marba meel ku dhumano meel ku harsanaa baa ka sawaani marba meel ku dhumaneen waxa wataa adeerkay gabow igu okay gabadha taamaanid waxay tahay intii social media ka maqlayn imka uu duumanayeen miya hasa siinay gabartii adeerkay la dilay kadib aniga la dilay isweydinaa wallahi noloshaas abtwar nolol xunee duuminta nolosha dhan waa wali caadi kadaranta wajigaaga la garanayo ileen qofka caam ku noqdo social media waa dhanba aysan jiray soo isagii gabadhiisu waa tip wallahi waxaas waa nabad la'aanta Soomaaliya wallahi bilaa waa nabad la'aanta qofna qof midleen qof baa iska gubaya gaar la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah waxa waa nabad la'aanta wallahi noqfad isbeedinays anina cabsi darteeda gabartii la dhumna marba meel seexneen markaas kadib waxa dhacday in dad garab nuusiyaan oo meel lagu qariyaan markii meel lagu qariyaan kadib waxa dhacday inuu Yariso inuu garab la siiyo oo meesha naga soo kaxeeyo markaas kadib meesha asana keenay inta noolaay ما شاء الله قبرتي إلها ويل إجسية ويل كذا حاقسمي أدرك أحمد دولة حاقسمي مركب حاقسمي أدرك أحمد دولة محن جريبي سوا الله من حرشت وقت انتي مركز كذب جريبي سوا مقال انت كذب إلى مركز واحد دريال محاصنة من الله تاجنا هاي حدينا شقاف الله يعني sababaan ka ku shaqeysto magaalada ku maray ma haasto qof xuriye shaqeysta karo qof xuriye han ma shaqo wallahi waa tip aan dareemi karaa ku xuriyad ma haysto oo ma bixi karayo meel ma tagi karayo ma shaqeysan karayo oo haduu shaqo aado meelaha lagu qabanayo hadii la qabtana waa la dilayaa walaa dilitaan ma aha la isara feerfeeray waxa naftaan iska qaadaya meesha marka wallahi noo adag bi ku jiraan aad boo adagtaa weliba qof saddexaad meesha ku soo biiray laba qof maaha iyagu haddii macalgaajoonayaan dee beerkii dhul ku dhajinayaan ma garanaysaa oo isla hadlayaan waxa isku odhanayaan dee waxa ma jiraan laakiinse kayl waxa ma jiraan ma garanaya dee kayl waxa ma kama horaya leena imika markaa wallahi aad baan wax maano aad boqolkiiba boqol
laakiin saniyoon waxaan moodi jiray in ay jireen hay-ado wadankii malaha UNT waxaa kama hadlayo ee hay-ado kala jiray hay-adiyaa loo geeyay dee hay-adahaas laga yaaba inay caawiyaan sababtoo ah waxaa la rabaa dadkan noloshooda si loo ilaaliyo kow talabaadna dee wax ku filan si loo siiyo qof bila-aadan oo dowlad ahayni wuu adeeg yahay siduu 3 qof u qaada ma garanaysaa markaa dowladba waxaan oo kale wax ka qaban kartaa hay-adaha wax lagu caawiyaa la geeyo maolaano sababtoo hay-adahan ba wax qaban kara waa haddii jiraan badee ama day muqdisho ka baxo malaha halkaa ka tago meel kala tago halkaa oo lagaga daba iman adag tahay karo runtii inkasta oo hadda Ruqiyo iyo Maxamed aad isku jecel yihiin iskuna qanacsan yihiin haddana waxay markasta u baahan yihiin inay helaan nolol wanaagsan taasina waxay ku hergeli kartaa kaliya shacabka Soomaaliyeed oo garab istaag u muujiya lamaanahan isjeclaaday balse waqtiga iyo qadarta alle ay ku dhacday waa kan mar kale Maxamed oo cod dheer walaalihiisa Soomaaliyeed kula hadlay waxaan ka rajeynayaa Soomaali inay garab qabtaan in garab isiyaan inaa bilaadanimo la fiiriyo oo muslimnimo la fiiriyo oo islaamnimo la fiiriyo oo garab la siiyo walaalay waxaan ka codsanayaa Soomaali inay garab isiyaan gudoomiyaha gobolka cusubna asna waxaan ka codsanayaa inuu garab na siiyo oo Soomaalina waxaan ugu qabto si baaskii gudoomiyaha Allah u naxariista jiray yiriso inuu noo buuxiyo aan ka codsanaynaa gudoomiyaha gobolka cusub taasna ka codsanaynaa dawladda ay gorta ogaada Soomaalidu waxa way u soo dirdiri kartaa ma garanaysaa laakiin Soomaalidu dhabarka ma saaran karto noloshooda dhan dadkan waa la ilaawiyaa imika aanu ilaawi walaayda sababta social media ka maqnaayeen dadka la soo karo ilaawiyaa aniga social media ku jiri baaba ilaawi dadka social media ku jirin ka waran marka horta aan tareemisana waxa weeyaan Soomaali imika waxa uu tari kartaayo waa tusaale lacag iyo waxa uu dirdiri kartaa laakiin se aan waxa ka hadlayaa mustaqbalka dambe aqal ma ahaanayso inuu Soomaali uun dhabarka u saarnaado muhiimadu waxa weeyaan in uu dawlad helo dawlad loo baahan yahay dawlad caawisa loo baahan yahay sababtoo ah dawladdu weligeed buu jiraysaa dawladdu weligeed buu jiraysaa in isbedesho mooyaane marka aan waxa uu la warka dawladda loo cararay ninkano sababtoo ah waa nin macal la ilaalinayo Soomaali ninkani waa nin la ilaalinayo laga cabsanayo in la dilo marka wuxuu u baahan yahay ilaalo meel fiican oo lagu yimin karin iyo cunto deen sidoo kale waxaan ka codsanaynaa in garab na siiso ayadaha adduunka dhan waxaan ka codsanaynaa sidoo kale ayagana inay garab na siiyaan aan ka codsanaynaa okay xaggan baa loogu dirayaa sadartiinba qofkii wax u diri karaya سلام صومالي بانك موعنا وحويا محمد عبد الرحمن account number كنا وحويا 66 وهدي هذا حدري كريس وعاك هاي دباتيسن لكن سي أنا وحاول لها هل تجو مالها أي دولة كدود أي هاي ده تجرب لها هاي ده haddaba walal caawi oo ka qayb qaado gurmadka walaalkeen iyo qoyskiisa waxa dhibaatadan keenay oo dhan waa qabiil Soomaarta sababta wiilkii qabiil kale weeyaan iyadoo qabiil kale markaa sababta la isku diidan yahay midkeen la iloobin waxa inaga qaxooti naga dhigay oo sidan inaga dhigayna waa maxay waa qabiilka weyn marka aanu ma garanay horta qabiilkaasi xil ugu dhamaanayo ma garanay aanu laakiin sababta qabiilkaasi hoos bay noo dhigay qabiilkaasi qeyrkeen buu naga reebay laakiin dadka qaarkood waxa ma fahmiyeen diyaar ma garanay dadka qaarkood wax ma galaan ma malanayaa dadka qaarkood wax ma galaan soo dhibaataysan buu koranayaa hadana qolobaad wuu dhibaataysan yahay markaan waxaan lahaa wiilka la iska daayno caawiya lambarkiisii wixii soo daartay ma malanayaa qofkii caawin karaya soo caawiya marka aygeed buu ma soo daawashay video waa daawatay way inuu video ka dambe tu dhaayado
rolling another. I'm stuck in my seat full of whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family, from a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Whole life ever when I knew not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's your fault. Steadily killing